jasiiradda Carbeed. Dubai ayaa tobanaankii sano ee ugu dambeysay ahayd jihada koboca marka ay joogto dhinacyada dhismaha, dhaqaalaha, dalxiiska iyo bilicda. 10 sano gudaheedse waxay u muuqataa in mustawahaas laga xoogi doono. oo kaliya ma aha in dhererka dhismaha dunida ugu dheer ee Burj Khalifa laga saari doono meesha sidoo kale waxa la wadaagi doonaa dalxiiskii, kobocii dhaqaale, u furnaantii caalamka intiisa kale iyo bilicdiiba. oo intaaba Sacuudi ayaa doonaya inuu yeesho inta aan la gaarin 2030. mashaariicdan loo bixiyay aragtida 2030 ee horumarinta Sacuudiga ayaa si xawli ah ku socda, kuwa oo aan daaro kaliya lagu dhisayn lagu yegleelayo magaalooyin hor leh, kuwa oo isugu jira qaar dalxiis, suuqyo ganacsi, gegiyo madadaalo iyo goobo nasasho. laga bilaabo magaaladan la yiraahdo Ramallah oo laga dhisayo xeebta waqooyi galbeed ee dalka, taa oo ka kooban 3,000 oo hotel, villooyin gaar ah, estate homes iyo goobo madadaalo. dib u dhisidda magaaladii qadiimiga ahayd ee Accra oo loo bedelayo jiho dalxiis maadaama ay horey ugu jirtay goobo taariikheedyada la booqdo ee UNESCO. magaalada la yiraahdo Neom ee laga dhisayo isla docda waqooyi galbeed ee dalka, taa oo ku fariisan doonta cabir dhuleedan 10,000 kilomitir, lana rajaynayo in lagu dhiso lacag gaaraysa 500 bilyan oo dollar. waa magaalo tiknoolajiyadeed oo tamarteeda cadceedda laga dhalin doono, taa oo la qorsheeyay in 1 milyan oo qof ay deegaan u noqoto. ogow magaaladan waxaa laga dhex dhisayaa mashaariic kale oo uu ka mid yahay kan lagu yegleelayo magaalada la yiraahdo The Line, taa oo iyana ah magaalo qariib ah oo cabirkeedu ka kooban yahay 100 mayl. dhismaha nooc magaaladeedan waxaa sidoo kale ka mid ah Osyagon oo iyana ah magaalo loo diyaarinayo warshadaha iyo shirkadaha tiknoolajiyadda. mashaariicda waaweyn ee qorshahan qaybta ka ah waxaa ka mid ah cagaarinta magaalada Riyadh, mashruuca oo bilowday 2019. waxaa lagu beerayaa 7.5 milyan oo geed. mashruucan ayaa la qorsheeyay inuu magaaladan lama deegaanka ku taal ka dhigo mid ka mid ah kuwa dunideena ugu cagaaran. dhismaha magaalo ganacsiyeed loo bixiyay King Abdullah Economic City ayaa mashaariicdan sidoo kale ka mid ah, taa oo laga yegleelayo dacalka badda cas. baaxad dhuleedkeedu waa 173 maylis, waxaana ay ka koobnaan doontaa deked caalami ah, xarumo warshadeed, goobo waxbarasho tayo sare leh, cisbitaallo iyo goobo madadaalo oo heer sare ah. intaa kaliya ma aha mashaariicda dhismaha ee qaybta ka ah aragti horumarineedka Sacuudiga ee 2030. ha yeeshee aynu ku darno kan daarta adduunka ugu dheer ee magaalada Jidda laga yegleelayo, Kingdom Tower oo la qorsheeyay in dhererkiisu noqdo 1 kilomitir, taa oo ka dhigi doonta dhismaha adduunka ugu dheer. oo Burj Khalifa Dubai ayuu booska kala bixi doonaa. waxaana la qorsheynayaa in dhismahan la soo afmeero sanadka 2028. garoomo kubadda cagta ah oo la qorsheeyay in dalkani ku martigeliyo koob adduunka 2034 lagu qaban doono, kulamo ciyaareedyo kale oo feerka heerarkiisa kala duwan ah, tartamada gawaarida iyo xitaa ciyaaraha Olombikada ayaa Sacuudigu isu diyaarinayaa inuu 10 sano ee soo socda martigeliyo. oo goor horeba bandhigyada Riyadh Season oo martigeliyay bandhig ciyaareedyo waaweyn ayaa dalka ka socda. qorshaha mashaariicdan waxaa bilaabay Maxamed bin Salmaan ka boqor sugaha ka ah dalkan oo loogu yeero inuu albaabada dunida u furay Sacuudiga. albaabo furka oo dadka qaybi fasaad aan loo baahnayn u aragto, qaar kalena aragti Sacuudi u baahnaa ay u aragto.